waalid ilmuhu intuu ku yimaado wax walba ma kuu sheegi karaa, ma ku dhiiran karaa? ilmahaagu intuu ku yimaado ma kuu sheegi karaan waxay ku fikirayaan? isdilkaanu ka hadlayay. adiga ma kugu kalsoon yihiin? ma kuu sheegi karaan waxa ay sameeyeen? ma kuu sheegi karaan qorshayaal waalidiinta badan oo dhan ka qarsoon? waxaan rabnaa ilmahan si aan u badbaadino insha allah in annaga ay noo sheegi karaan wax walba. marka su-aasheedu waxa weeye, ilmuhu intay kuu yimaadaan runta ma kuu sheegi karaan, mise markay kuu yimaadaan silence iyagoo aamusan, half truth iyagoo qayb kuu sheegi qaybna kaa qarinaya, ama been kuu sheegaya? midkay labada sameeyaan? waa su-aalaan rabna inaan isweydiino. maadaama aan rabno ilmuhu inuu noo yimaado wax walba noo sheego, anoo waalidkii ah uusan cid kale u tegin, oo sidii aan qur-aanka ku sheegnay nebi yuusuf oo kale ay ii noqdaan, oo hadday riyoodaan xitaa odhanayaan hooye waxaasaan ku riyooday, aabba waxaasaan ku riyooday. maxaa la samayn? laba shay ayaan idinla wadaagaynaa maanta. midda koowaad waxaa la yidhahdaa connection over control. ilmuhu in aanay ku dhiiranin runta inay noo sheegaan, oo qayb un ay noo sheegaan, ama naga aamusaan, ama waxba aanay noo sheegin, oon ogaan weyno meeshay u socdaan, oon ogaan weyno waxay ku fikirayaan. kama timaado oo keliya inaanayna xiisaynin. ha is odhan kuma xiisaynayaan, ee waxa weeye they don't feel safe with you. innaga safe naguma ag dareemaan. canaan baa kaa soo horaysa, criticism. hadalka kama sugaysida waad ku buuqi, markiiba waad dhex geli. caruurtu marka safe kuguma dareemayaan. science-ku wuxuuna barayaa arrin cajiiba, neuroscience-ka waxaa la yidhahda. waxay yidhahdaan kids are more open when they feel emotionally safe. caruurtu conversation ayay kula yeelan, connection ayay kula yeelan. waad isku xidhmaysaan, wax walbay ku dhiiran inay kuu sheegaan. saaxiib bay rabaan inay kula noqdaan. waa goorma? waa marka emotionally ay kugu ag dareemaan safe. maxaan ka wadaa? marka qalbigooda, dareenkooda, wax walbay adiga kaa filayaan, ay safe kugu dareemayaan. ay odhanayaan waalidku waa kii i guide garayn lahaa, i daadahayn lahaa. marka safe bay kugu dareemeen. waa arrin uu saynsku inoo sheegayo. diinteena kolkaan eegno sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waxaa cajiiba subxaan allah, saxaabadu waxay dareemi jireen rasuulka markay la joogaan emotionally safe inay yihiin. maxaan ka wadaa? wax walba oo qofka markaa saxaabiga ah, wiilya gabadh, rag iyo dumar, laga yaabo inaanay waalidkood u sheegin, laga yaabo dadka kale inay ka qariyaan, rasuulkay ula imanayaan sala allahu calayhi wasalam. bal ka waran wiilka dhallinyarada ee ansaarta ah ee xilligaa la joogay raba inuu yidhaahdo yaa rasuul allah, zinadaan rabaa in la ii banneeyo. u fiirso, wiilkaas waa nin dhallinyara. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam intuu yimid buu wuxuu u sheegayaa qalbigiisu wuxuu dareemayo, naftiisu meeshay u socoto, qorshaha uu wado. ma u malayn maanta ilmaha dhashay waxaynu kugula dhiiranayo? ma u malayn sheekh kasta, imaam kasta, daaci kasta inuu maanta jiro qof emotionally safe ku ag ah, oo intuu yimaado waxaa ku odhanayo qofkan rasuulku sala allahu calayhi wasalam u yimid, yaa rasuulallahi saasaan rabaa. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam u fiirso, ma jaaj garaynin, criticism ma canaananin, ma fadeexayn. kaalibi muxuu dareemay wiilkaa dhallinyarada emotional inuu safe yahay. markaasuu wuxuu ku yidhi ma leedahay ehel? markaasuu yidhi haa, hooye ma leedahay, gabadh ma kula dhalatay, gabadh ma dhashay? markuu sheegay wuxuu yidhi dhaqankaas waxaase naftaada kuu sheegayso, ma jeclaan lahayd qof kale inuu iyaga ula yimaado? u fiirso dareenka qofkan ka dhex guuxayay, qaabka u tusay. markaasuu yidhi maya. de wuxuu yidhi qof walbaa hooyuu leeyahay, gabadh baa la dhalatay, xaas buu leeyahay, gabadh buu dhalay, gabdhahani reeray ka soo jeedaan. practically markuu saa ugu sheegay ayuu u duceeyey. rasuulka sala allahu calayhi wasalam emotionally safe ayay ku dareemi jireen. innaga marka caruurta haddaanay emotionally safe nagu dareemin, maxaa dhacaya? waxaa dhacaya inay wixii naga qariyaan ama qayb noo sheegaan iyo wax la mid a. sidaa darteed xalka u horeeya waxa weeyaan build safe space, inaan dhisno safe space. safe space waxaa laga wadaa ilmaha markay kula hadlayaan keligood inaad la hadlayso, oo caruurta kale aadan ku ag fadeexayn. ilmuhu markay kula hadlayaan indhaha inaad ka eegayso, inaad usoo jeedo, qaabkaad ula hadlayso, qof cadhaysan inaadan ahayn, qof madaxa saale inaad tahay, inay kaa dhex arkayaan wax la yidhahdo affection, inaad jeceshahay ilmaha, inay kaa dhex arkayaan in attention aad usoo jeedo. ilmaha midaas ayaa la yidhaha safe space, waana midda rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay saxaabadu ku dareemeen. halka labaad, qodobka labaad waxay yidhaahdaan be the calm not the storm, oo ah noqo mar walba dejiye, ee ha noqonin duufaan ama kii dabka kusii daraya ha noqon. be the calm not the storm. masalan tusaale kusin, ilmaha ku yimid aabba imtixaankii f baan keenay, gabadhaada ku tiri ahba waxaasaan sameeyey, miyaad ku boodin, miyaad canaanan, ma magacyaad ugu yeerin, miyay argagaxayaan, mise waad dhegaysani? sidaa darteed inaad marka hore dejisaa la rabaa. waxay yidhaahdaan caruurtu sidoodaba waxay qofka la sheekaystaan markay ogyihiin emotional punishment inaan ugu samaynin. emotional punishment waa qalbi garaac, waa magacyaad ugu yeedhi, waxa weeye waad argagax gelinaysaa. sidaa darteed neuroscience-ka iyo daraasaadku waxayna barayaan, waxay yidhahdaan childish brain shuts down when they feel a threat. ilmaha maskaxdoodu way isxidhaa markay dareemaan threat. waxaa laga wadaa hadday threat ama emotional threat inaad canaananayso, ama emotional punishment inaad qalbi ahaan garaacayso, magacya ugu yeerayso
fiirso hadday middaa og yihiin iskuma kaa furfurayaan way isxidhayaan marka ilaahay maad waalidkood ahaadid ehelkood ahaadid way iska kaa xidhayaan waa in marka ay dareemaan inaad adigu dejiye tahay oodan ahayn stoonkii ama aadan ahayn midkii dabka ku daray labadaa waa muhiim mar kale waxaan arkaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabigii baltaca waad garanaysaan qisadii rasuulka iyo saxaabadoo markaa maka u socda oo raba nimankii quraysh ahaa in ay ku duulaan markii fatxulmaka waa kii saxaabigii xaatib bin baltaca radiallahu canhu waardaa uu warqad intuu u diray quraysh uu u sheegay in loo soo socdo haddii shuruucda maanta adduunka la eego runtii waxay noqon kartaa treason waxay noqon kartaa wax qofka military ahaan wadamada qaarkood la dili karo la xidhi karo la ciqaabi karo u fiirso rasuulku uu u yeedhay markaas wuxuu ku yidhi xaatib ila nebi maxamed waxba kama qarsoona sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa u sheegay jibriil usoo diray maxaa kugu kalifay buyi xaatim wuxuu dareemayaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in uu kala saarayo xaatib ninkuu ahaa ahlu badar inuu ahaa iyo falkan aan habboonayn ee ka dhacay iyadoo cumar uu leeyahay yaa rasuul allah ii bannee aan qoorta ka jiro wuu munaafaqoobay iyo wax la mida waa ka rasuulka sal ly slam cumar intuu ayay ku yidhi cumar soo ma ogid xaatib inuu ahlu badar ahaa u fiirso wuxuu kala saaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaatib falka ka dhacay khaladka ka dhacay iyo ninkuu ahaa identitygiisa iyo actionka ka dhacuu kala saaray sidaa darteed waa kii yidhi yaa rasuul allah sala allahu calayhi wasalam yaan laygu degdegin runtana u sheegay ee yidhi ma aragta reer la yaqaan kama dhalan reer yar baan ka dhashay carruurtiiba xagga iga joogtay ehelkii ha lagu daryeelo umbaan lahaa intaasi ahayd waxaan u baahannahay walaalayaal oo waalid legacy maanta idiisoo gudbinaysaa carruurta si ay noogu dareemaan in ay wax walba inoo sheegaan oo inagu kalsoonaadaan waxaan rabnaa in anaguna aan jaajgarayn kelmadeenu waa intaa allah xifda awlaadeena fadlan subscribe chanaalka waalid legacy insha allahu tacala wixii su-aalaana noo soo gudbiya